Waxaa caawa magaalada Muqdisho ee ku geeriyooday Allah u naxariistay Cabdulqaadir Ibraahim Gacal Abkow oo markaasi ahaa abaabulaha isboortiga dalkeena Soomaaliya sidoo kalena xilal badan ee ka soo qabtay xiriirada ee dalkeena Soomaaliya wuxuuna ahaa aas-aasihii iyo kobciyihii kubadda cagta kubadda kolayga dhammaan iyo xiriirada dalka oo qayb weyn markaasi ka ahaa waxa uu caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho dhammaan bahda kubadda cagta dhammaan xiriirada dalkeena Soomaaliya iyagoo markaasi isku wada duuban ay ka tacsiinayaan geeridii ku timid Cabdulqaadir Ibraahim Gacal Abkow oo markaasi qayb weyn ka ahaa horumaryaha isboortiga dalkeena Soomaaliya mas'uuliyiinta sida weyn ee kaga tacsiiyay ayaa waxa markaasi kamid ah gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani sidoo kale gudoomiyaasha xiriirada kale ee dalkeena Soomaaliya ayaa sidoo kale ka tacsiiyay sidoo kale waxaa ka tacsiiyay dhammaan bahda ciyaaraha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya ay markaasi ehel iyo asxaab iyo sidoo kale bahda isboortiga ugu tacsiinayaan Allah u naxariisto ayaan markaasi leenahay dhammaan qoyskiisa iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed samir iyo imaan Allah inaga siiyo gudoomiyihii hore ee markaasi qaybaha kala duwan ee isboortiga ee soo maray isagoona caawa markaasi ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana maalinta beritaasi rasmi ah ee loo sameyn doonaa aas qaran oo markaasi ay soo abaabuli doonaan guddiga Olombikada qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirada dalka iyo dhammaan bahda isboortiga dalka oo ay markaasi ka tacsiinayaan aaskaasina u sameynayaan